السلام عليكم. حقا قرصون oo ku saabsan qoraxda waa xidig aad weyn oo dhulka u jirta 150 milyan oo kiiloomitir. iftiinkeedu si uu dhulka u soo gaaro waxay ku qaadataa 8 minutes iyo 9 daqiiqo. iftiinkeedu 1 daqiiqo wuxuu jarayaa 300 oo kiiloomitir. sanadkiina wuxuu jarayaa 9.4 waxaana lagu magacaabaa Leteer. qoraxdu waa xidig aad weyn oo ay sii daynayso heerkul aad weyn, waxaana kuleylkeedaasi uu la dagaalamaa fayrasyada qaar sida hargabka, fayrasyada yaryar ee soo weerara jirka qaarna halka ayaa ka yaraynaysaa sida cudurkan halista ah ee corona. dalalka uu sida xun uga baahayna sababta ugu badan waa qorax la'aanta. qoraxdu inteeda badan waxay ka samaysantahay curiyaasha hydrogen iyo helium. xajmigeeda qoraxduna waa xajmiga ka weyn kan dhulka. qoraxdu waxay aad uga weyn tahay dhulka. daraasad u daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ayaa la sheegay in qoraxdu ay yarayso khatarta dhiig karka, wadne xanuunka iyo cudurrada khalkhalka. baarayaal British ayaa xusay in qoraxda oo jidhka loo dhiga ay tahay faa'iido aanay dareensanayn dadka cudurradaasi qaba. Marty Felish oo ka tirsan jaamacadda Southampton ayaa sidoo kale ka qaba in qoraxdu ay yarayso cudurradaasi. ma jiro waqtiyo gooni ah oo ay muujinayaan warbaahinta soo xigtay daraasadan cusub. dadka qaar ku socda ayaa la xusay in aanay khatar kala kulmin khatartaasi. cunidda vitamin D ayaa sanad kasta hargabka difaaci karta in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool UK. sida ay sheegeen cilmi baarayaal, faytamiinka qoraxda laga helo ayaa muhiim ah caafimaadka lafaha, waxaana sidoo kale dowr ka qaadata habka difaaca jirka. warbixinta baaritaanka oo lagu daabacay British Medical Journal in cunida lagu daro faytamiin in cunada lagu daro dadka aan inta badan cadceedda helin sida kuwa aan guryaha ka soo bixin ayaa lagula taliyay in sanadka oo dhan ay qaataan faytamiinkaasi oo ah vitamin D. PHE hay'adaas ayaa kula talisay dadka UK inay xilliyada qabowga qaataan vitamin D si ay u wanaagsanaadaan lafahooda iyo caafimaadkoodu. cilmi baarista ayaa lagu soo bandhigay cunida vitamin D ay waxtar badan tahay talaalka hargabka, balse hay'adda caafimaadka dadweyne ayay England ka badbaadiyay faytamiinkaas. cunidooda ay ka badbaadiyay fayrasyo aad u badan ayaa sheegtay in macluumaad ku aadan caabuqa hargabka ay si dhammaystiran loogu soo bandhigin baaritaankan. والسلام عليكم ورحمة الله. إلهي بمهسكال الحمد لله. فضلا شر كنال كينا هل قفنا هاتي وشاقري.